bismillahi raxmaan raxiim. wadahadalkaas shalay buu dhacay, kulan muhiim ah dhex maray shalay labada dhinac magaalada Asmara ku dhex maray. wuxuu kusoo gabagaboobay isfahan guud, wax la yidhahdo afgarad guud ama common understanding in la yeesho. marka wadahadalkii muhiimkaana dib uu ka bilaabmi doonaa yani lagu soo afjari lahaa. dhinaca dawladda Ethiopia yaa matalaya, dhinaciina se yaa matalaya? dhinaca dawladda Ethiopia waxaa matalaya wasiir federaal ah, dhinaca anagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo guddoomiye hogaaminayo. markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo guddiga wadahadal ka tirsan. wadahadaladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore? kuwii hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca Ethiopia runta uga dhawaayeen maanta, yani ama shalay kulankii ahaa. kuwii hore runta uga dhawaayeen, yani waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan Soomaaliyeed ay leeyihiin, Soomaalida ogaadeenaya ku nool Somali State. marka in la is-afgarto ayuu is-afgarad guud dhaco, kadibna la isku afgarto si wadahadalada usii socon lahaayeen. heshiiska mardambeysa loo gaari lahaa baa la isku afgartay. marka waxaan islahay xukuumad ka duwan xukuumadihii hore ayaa joogta. habka loo wada hadlayo ka duwanaa, runtuna uga dhawaa kuwii hore. haddii aad tusaale naga siisid, maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen? hadda wuxuu ahaa is-afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa. marka waxaan filaynaa wadahadalka muhiimka ah wuxuu kusaabsanaan doonaan kolley arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo arrimo la xiriira hoos yimaada. marka ayaamaha soodii lagu soo ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhiimka ee arrimaha detailka ama faahfaahinta lagu sii lafagurayo. kolkaana waa inla wadaagi doona insha allah. goormaad u ballanteen wadahadaladu inay sii socdaan? waxaa lagu ballamay in Asmara kasii socdaan, ay ka dhacaan mar kale ayaama gudahood. marka labada dhanba inay matashi isugu noqdaan qoladoodii, ururkuna isku noqdo, dhinaca Ethiopiana isku noqdeen. marka la isku soo noqdo maalmo gudahood baan wax muddo isbuuc ka yar baan filaynaa. maxay tahay markaas sababta keentay in wadahadaladan Asmara lagu qabto? Asmara dhexdhexaadinta waxbay dawladda Eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay. waxaa kaloo jira madaxda ururka, xafiiska ururka ee halkaas yay ku sugnaayeen. marka meeshii ugu dhow laba ku kalsoon yihiin juqraafi ahaanna ugu dhow Ethiopia iyo Ogaadenia ayay ahayd. jabhaddii ama ururkii idinla midka ahaa ee OLF ee Oromada Ethiopia waxay ku noqdeen dalkii, waxayna dhigeen hubkii. idinku goormaad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho? wadahadaladan kasoo yaa jaamin karayo. wadahadaladan ku saabsan waxay arrimaha ka hadli doonaan. marka waa wadahadalkan ukaadina yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ee laga hadli doono kamid yahay. isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaamiye cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub. ma jira wax xiriir oo idinka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed? xiriir aad u wanaagsan baa naga dhexeeya. waftigii shalay Asmara tegayna waxaa ku jiray madaxweynaha Somali State ama ismaamulka Soomaalida. marka isfahan weyn baa jira. hadda ka hor markii la doortay kadib wafti jabhadda iyo madaxweynuhu way kulmeen. si aad u qoto dheer baa la isu fahmay. marka wada shaqayn fiican baa ka dhexaysa jabhadda iyo maamulka Soomaalida.